xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhawaan ka hadlay warna ka soo saaray xarig lagula kacay qaar ka mid ah abwaaniinta iyo waxgaradka Soomaaliland. wariyeena Axmed Daawud ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mar maanta warbaahinta kula hadlaya xarunta dhexe xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay xarigii loo geystay abwaan baasha iyo waliba macallin Cabdiqaadir ka jira saaka waxaan xabsiga ugu tagay aan booqday abwaan baasha iyo macallin Cabdiqaadir oo labadoodaba sida aan la socono xukun arxan darro ah oo cadaalad darro ah oo mandaqa iyo aqliga iyo garaadka qof kasto wax garad oo reer Soomaaliland iyo mujtamaca muslimiinta iyo qof kasto kalaba ka baxsan lagu xukumay oo cadowtinimo ay runtii ka muuqato lagu xukumay. waxaan ku faraxsanahay inay noo sheegeen askarta oo jeelka joogta inay si fiican ula macaamilaan dad wanaagsan ay yihiin annagana booqashadii aan u tagnay runtii askarta waa uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsaneyd ay noo qaabileen inoo soo dhaweeyeen. waxa kale oo saaka la kulmay qoysaskoodii oo maxaan ku dhahdaa faamiliyadoodii. baasha waxa uu ahaa aabbo 10 caruur ah haysta isaga ayaa u shaqayn jiray oo maxaan ku dhahdaa mas'uul caruurtiisa ka ahaa nin xoogsada ah oo wastaada oo guryaha la dhisay ka shaqeysta ayuu ahaa. macallinkuna macallin buu ahaa oo isaguna iskuul buu baraka ahaa. waxaan ognahay inuu naqaanaa macallinku inuu qaato wax $100 ka yar. aqliga dhigaya qof shaqaale dawladeed oo $100 wax ka yar qaata in lagu xukumay inuu $600,000 lacag ka badan oo ganaaxa uu bixiyo ee aan cadowtinimo iyo arrin gundheer oo jeeda kale laga leeyahay ahayn anigu ma garanayo. probability-ga hadaad xisaabiso noloshiisa oo dhan waxa soo gali kara de loo tari inuu helo lama sheegin maxaan ku dhahdaa amaba si kale ilaahay meel kale wuxuu ga siiyo laakiin waxa muuqda qof shaqaale dawladeed oo waxa uu qaataa inta yahay in inta lagu xukumay waxay muujinaysaa sidii u kala fogyiin dadka wax xukumaya iyo waaqaca iyo duruufta lagu nool yahay maanta ay dadkeenu ay ku nool yihiin ay ku jiraan. waxa kale oo isagana ay noognahay in dad fara badan oo kale oo reer Soomaaliland ay xiran yihiin oo dulmi iyaguna maxaan ku dhahdaa ay ku xiran. qofka muwaadinka ah khalad uu sameyn karaa dambi uu sameyn karaa laakiin tiise marka aad eegto shuruucda iyo qaabka dariiq kasta oo nimanka loo maray dariiq qaldan buu ahaa. inta kale xogayaha hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka hadlay in xeerka xukunka hadda la isticmaalo uu yahay xeerkii Maxamed Siyaad Barre balse aanu jirin xeer cusub. xeerarka aynu isticmaalo inoo shaqeeya waa xeerarkii la sameeyay 1967 markii dambena xukunkii kale taliska ahaa ee Siyaad Barre uu maxaan ku dhahdaa ka bedel iyo kaabis ku sameeyay 1974 waxaan daraa inagoo ah qaran madax banaan 27 sanadood in xeerka la inagu xukumaa xeerkii Siyaad Barre yahay in xataa jaldigii la tahli waayay laga bedelo jahliga Republic of Somalia uu ku yaalo dawladnimada aynu sheeganayno iyo waxa aynu doonayno iyo waxa aynu diidanayno ka dagaalanay ay dadku isweydiinayaan markaas waxay tahay dulmigu magacyo ma kala laha. qofka muwaadinka ah hadii la dulmo yaa ku dulmay malaha laakiin wuxuu waa dulmimay. shalay hadii Siyaad Barre lagu diidanaa inuu dulmi sameeyo hadii lagu diidanaa inuu eex sameeyo hadii lagu diidanaa inuu qabyaalad sameeyo hadii lagu diidanaa inuu dad gaar si gaar ah u eeganayo maanta intiiba wadankeena ay ka jirtaa. miyayna la socotaan in kala mooyee Cabdicasiis Samaale ayaa khudbad dheer oo Quraan badan ku jiray ka akhriyay. waxa uu inta soo jeer ku celiyay cadowgeena isagoo cidda uu toos uga hadlaya uu refer gareynayaan ay tahay xisbiga wadaniga inta taageerta. cadowgeenu waxbuu inaga sheegaa cadowgeenu sidaas uu yiraahdaa marka ninkii dawladnimada iyo maamulka ummadda hay uu arka dadkii ka fikrada duwanayna cadow yihiin
qofka ku cadowga sida ula macaamilaysa waa taqaana macaamilaadka socda ee taageerayaasha wadani lagu bartilmaameedsanayo ee dhibaatada loogu geysanayo ee qaarkood lagu xidhxidhayo ee qaarkood maxaan ku raahdaa ganacsigoodii lagu dhibaataynayo waa cadaawada uu sheegay maxaan ku raahdaa Cabdicasiis Samaale Axmed Midnimo iyo sawir qaade Maxamed Deero Kelson TV Hargeysa